أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دالكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى وحان ورديا ورديا دكسي لو آذى waxyaalaha looga baahan yahay waxbarashadu in ay leedahay ama casharku in uu leeyahay waxbarashada guud ahaan waxa la yiraahdaa waa inay maaweelo leedahay waa inay ku jirtaa wax qofka himadiisa kor u qaadaya oo farxad gelinaya oo ka dhigaya qofkaasi inuu jeclaado waxa uu maqlayo ama loo sharxayo ama uu ku dhex jiro oo baranayo waa in nafsul waqt ay ku dhex jirtaa wax kobcin la yiraahdo ithraa'i waa inuu leeyahay kobcin waa inay ku dhex jirtaa ama manhajkaas la raacayo ha noqdo ama ha noqdo qaabka loogu gudbinayo macluumada loo gudbinayo ardaygu waa inay ku jirtaa heerkiisa oo kor loo qaadaya garaadkiisa oo kor loo qaadaya waa inay kobcin ku dhex jirtaa waxbarashadaasi waa inay leedahay qiimayn lagu qiimeeyo ma la gaaray meeshii la rabay mise lama gaarin ardaygaani ma bartay wixii la rabay mise ma baranin hadhowto qiimayn leeyahay qiimayntan waxa waad gaartay ama ma aadan gaarin waa inay leedahay waxbarashadaasi manhaj waa inuu jiraa waxbarasheed oo heer leh oo ardaygu uu wax ka baran karo oo markuu heer dhameeyaba uu heerkii kale u gudbi karo arrimahaas waxbarashadu u baahan tahay ayaan jaantuuskan idinkugu soo gaabiyey midka ugu koreeya waa manhajkii waa inuu yahay manhaj sidii aynu horeba uga soo hadalnay la isku halayn karo oo macluumaadii loo baahnaa oo heerarka lahayd waa in laga dhexelaa kobcin waa in laga dhexelaa manhajka dhexdiisa heerkan markuu ka gudbada heerka ka koreeya waa inuu yahay meesha ugu sareysa ee uu gaarsiisan yahay mid aad uga sareysa tii fasalkii ka horeeyay uu gaarsiinayay waa inuu yahay manhaj looga taxadaray hal wax kaliya aan ku salaysanayn waxa caruurtaas bi'adiisa ku hareeraysan dhammaantood wax ka dhaadhicinaya oo ku hubaynaya tooshkii uu ku iftiinsan lahaa dhinac walba oo laga fiiriyo dhinacyo badan caqiidadii waa inuu dhisayaa akhlaaqdii ardayga waa inuu xuquuqdii asaga tuu lahaa iyo tii asaga lagu lahaaba uu cadaynaya waa inuu ardaygaas siduu ilaahay u kaalmaysan lahaa baraya waa inuu barayaa dadkii uu ku dayan lahaa sida nabiga sallallahu alayhi wasallam manhajka noocaas ah waa in la helo way kobcintu saasay ugu dhex jiraysaa maaweelo waa qaabka loo gudbinayo qaababkii badnaa ee aynu soo sheegnay qayb ka mida weeye laakiin inay mar walba xoogaa farxad gelintaasi ku jirto waa muhiim xisaabtan waa inuu jiraa waa inuu maamul meeshii jiraa waalidku waa inay xisaabtamayaan xisaabtamid waa inaysan ka marnayn rukni ahaan waxbarashadaas qiimaynna waa inay jirtaa ardaygii lagu qiimeynayo heerkan ma gaarin mise ma gaarin hadduusan gaarin in asaga la dulmiyo maaha oo kor loo sii qaado waa in heerkii la isku dayaa in la baro marka noocaasina ama qaybtaasina waa qaybta ama waxaan oran karnaa arkaanta looga baahan yahay waxbarasho meel gaarsiin karta ardayga qasdiga dhammaan inta qof ama jiho ee qaybta ka ah dugsiga ama waxbarista ilmaha waa in qasdigooda koowaadii uu yahay kow mid mabda' ka ah oo uu aaminsan yahay laba leh hadaf ama yool uu tiigsanayo saddex waana in ay jiraan wax ku kicinaya ka qayb qaadashadeedu waa mabda' yool iyo wax ku kicinaya qofka saddexdaas qofku marka uu kulansado ayuu noqon karaa qof si dhab ah dowrka uu ku leeyahay waxbarista ilmahaas uga soo bixi kara qof kasta ayaana laga hadlayaa halkan qofkaas ama ha noqdo waalid macallin maamul ama ha noqdo cid kale oo la ku yeelata waalidku ayaga mas'uuliyad gooniyaha sii saaran waxaa ka yimaada maadaama cidda loo khidmaynayo iyagu ay yihiin maamulku waxba ma fulin karo hadduusan dhaqaale fiican haysan macallinka xariifka ah oo xirfadda leh oo gaarsiin karana waxaa laga yaabaa inaysan macquul ahayn maamulku inay waxa meelaha laga sheego aysan waxba ku heli karin waxaa isku xiran marka dakhliga madarasadaas iyo qaabka heer waxbarasheedkeedu uu gaari karo iyadoo oo maamulka jooga laftiisa iyo skillska ama xirfadaha uu leeyahay laftigeedu ay muhiim tahay marka waalidku waa inay diyaar u yihiin in ay wax u horaan in ardayga wax loo baro
kulana xisaabtamaan maamulkaas iyo macalinkaas in ay samaynayaan wixii ay ku heshiiyeen waan ognahay maantay waxyaalaha iskuulka meelaha lagaga caawiyo caruurta lacagtoodu aad iyo aad bay u sarreysaa diyaar waxaa loo yahay in la galo oo la bixiyo aan hadal laga keenin per hour ayay ku qaataan waxaa laga yaabaa macalinka dugsigu waxa uu 2 wiig ama 3 wiig ku qaato 1 hour inuu macalinka ku qaato iskuulku ayaa laga yaabaa taasna ma socon karto waalidku waa inay muraajaca sameeyaan maamulku waa inay muraajaca sameeyaan caruurta yararka waa inaan waqtiga laga dilinin waa in la helaa nidaam isku xiran oo kor u qaadi kara ardada waxbarashadoodii oo leh asaasiyaadkii loo baahnaa sida dhaqaalahaas iyo xirfadlayaasha maamul ha noqoto ama macallin ha noqote iyo qalabkii waxbarasho ee loo baahnaa meel environment fasal oo kale oo kalaas ah waa inay leeyihiin manhajkii sidoo kale kharash buu u baahan yahay waxoo dhan kharash la'aanta ma soconayaan marka intaas oo dhan oo isla socota ayaa ka qayb qaadanaysa ardaygaas inuu halkaa gaaro haddii qaar maqan yahay waa maqan yahay waxaad ku xisaabtamaysaa 5 sano 6 sano kadib markuu halkaa joogo ardaygaas joog meeshaadii joog in uu wali yahay ama in wax ka sii dhilmeen maaha aysan waxba u siyaadin marka waxaan ugu naseexaynayaa waalid iyo macallin iyo maamul intaba in ay xusuusnaadaan sallallahu alayhi wasallam hadalkiisii kullukum ومسؤول عن رعيته دمانتين مسؤول باتهين ولا إذن ويدين دونا وحي إذن راعي المهيركا ولا إذن راعي والدكو مسؤول باتهين مامولكو مسؤول باتهين معلنو مسؤول باتهي لسعو وانا ويدين دونا سيدي يا صوحتكو جوابي لحيد وجزاكم الله خيرا أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو waxaan ordayaa dugsiyada u aadaa waxaan ordayaa dugsiyada u aadaa inaan aqoon kororsado dalkayga anfacay dadalkii la yimide allahayow ii gargaar